ninkan aad arkaysaa muddo 8 sano wuxuu ku dhex noolaa mashiinkan aad arkayso ayuu ninkan ku dhex noolaa kaasoo ka caawinaya inuu neefsado waliba intaa waxa ku darsanaysaa ninkan mashiinka ku dhex nool wuxuu caawiyay dad badan isagoo oo inta uu mashiinka ku dhex noolaana noqday lawyer iyo qof buugaagta qoraba iyo sidoo kale waa farshaxamayste isagoo sawirada sawiri jiray. Man who touched hearts, overcame unthinkable challenges, set a world record, and he died this week. Paul Alexander spent his entire life in Dallas, and most of those 78 years he was confined to what is known as an iron lung. Our JD Miles tonight to share his incredible life. My name is Paul Alexander, but they call me the man of the iron lung. iyadoo taas ku tusayso inaanu qofku marnaba isdhiibin maadaama ninka mashiinka ku dhex nool aan lugaha dhaqaajin karin aan gacmaha dhaqaajin karin ee kurka oo kaliya dhaqaajinaya uu noqday lawyer qof buugaagta qora iyo qof sawirada sawira taas waxay cadeynaysaa inaanu qofku marnaba aanu isdhiibin. haddaba maanta waxaan ka warramaynaa Paul Alexander 1950kii waxaa caalamka si weyn u qabsaday xanuunka la yiraahdo polio iyadoo caruur badanna ay ka dhigtay naafa. haddaba Paul Alexander wuxuu ahaa 6 sano markii ay ku dhacday xanuunkan dabayshu 1952. haddaba Paul waxa ku adkaatay neefsashadiis iyadoo lagu xidhay mashiin la yiraahdo iron lung. mashiinkaas aanu ku noolaa muddo 8 sano. haddaba mashiinkan dadka lagu xidhaa badanaa waxay ahaan jireen dad si ku meel gaar ah loogu xidho oo marka dambana laga saaro laakiin Paul wuxuu noqday gurigiisii isagoo mashiinkan marna laabtiisa riixaya sidoo naqasku uga soo baxo. inkastoo Paul uu xidhnaa mashiinkan haddana may go'aamin noloshiisa mashiinkan. Paul wuxuu go'aan ku gaaray inuu jaamacad galo wuxuuna galay jaamacadda sharciyada wuxuuna noqday garyaqaan ama lawyer wuxuuna ka gaaray guulo waaweyn aanu qofna ka filayn guusha inuu gaadho. I am a lawyer now. I practiced law for 30 years. I wrote a book. haddaba nolosha Paul Alexander waxay tusaale u muujinaysaa qof kastoo aadana isagoo mashiinka ku dhex nool haddana uu kumay noqon xabsi ee wuxuu rumeeyay riyooyinkii uu jeclaa inuu lawyer noqdo iyo inuu noqdo qof farshaxamaysta ama artist ah. hadaladii Paul Alexander laga qoray waxa kamid ahaa naafadu ma aha inay caqabad ku noqoto guushaada. hadda daawooyinka cusub waxay meesha ka saarayaan cudurka la yiraahdo dabay laakiin mashiinkan uu Paul xidhan yahay waxay cadeynaysaa xasuusihii hore ee tiknoolajiyada waqtigii aan awood lahayn ee qofku u dhaxeeyay geeri iyo nolol. 22kii January 2024kii wuxuu Paul samaystay TikTok isagoo ku soo gali jiray Paul Alexander. waxa sidoo kale aan la iloobi karin inuu Paul Alexander inuu qoray buug la yiraahdo 3 minutes for a dog. buugan ayaa wuxuu ku qoray afkiisa iyo qalin isagoo computer-kana marmarka qaarkood isticmaalayay isagoo qalinka intuu afka geliyo qalinka ku taabanaya keyboard-ka computer. waxaana sidoo kale uu Paul sheegay in buugga uu qoray 3 minutes for a dog inuu ku qaatay 5 sano inuu buugga qoro. hal qof ayaa ka soo weydiiyay TikTok-ka comment ahaa ka waran haddii uu mashiinkaagu shaqayn waayo ama uu laydhku ama dabku uu ka tago maxaa dhaci lahaa. Without electricity, our lung does not work. Because it's all run by electric motor. So if the electricity goes out, it stops. And I stop breathing. That's a frightening moment. Because to me, wuxuu sheegay Paul haddii uu gurigiisu bilaa laydh noqdo ama laydh ku tago inuu isagu dhimanayo haddii mashiinkaas hal mar istaago. haddaba February 2 ayuu Paul soo duubay video uu leeyahay kaga warramay nolosha mashiinka iyo sida mashiinkan aanu marnaba dibadda u jeclaan lahayn inuu dadka u taabto iyo caqabadaha mashiinka uu leeyahayba. haddaba February 2 ayuu Paul soo duubay isagoo ka sheekeynaya mashiinka iyo nolosha mashiinka. xigay Paul wax video ama soo duubin TikTok-giisina wax video lama soo dhigin. dadkii ku xidhnaana aad bay uga warwareen markay eegeen Paul oo aan waxba soo dhigayn. February 26keedii qofkii social media gacanta uga hayay ee u duubi jiray ee u soo dhigi jiray ayaa TV-ga soo fariistay isagoo kana hadlaya xaaladda Paul.
Hey everyone, I know this is not the face that you're used to seeing on this account. My name is Lincoln and I run social media for Paul Alexander. And the reason I'm here talking to you guys today is that I know there's been a lot of questions and comments about where have the videos been, is Paul doing okay? And last week he was unfortunately rushed to the emergency room in the hospital. He tested positive for COVID, which is really, really dangerous, obviously, for someone with his condition. Fortunately, they have an iron lung at the hospital just for him. And he was able to come home this weekend, but unfortunately, he's still kind of weak. He's still got some confusion going around. He's been struggling to eat and hydrate. So for that reason, we'll be holding off on the videos for a little bit longer. Thank you so much for your words of support and your comments. They really do make an impact in his life. If you're looking to further support, obviously we have the GoFundMe in all of the bios, and that's been doing really well recently, so thank you for... waxaanu sheegay wiigii u dambeeyey in Paul loola cararay dhakhtarka emergency-ga. dhakhtarkana waxaa loo dhigay Paul waxaa helay xanuunkii COVID-ka ahaa, taasoona halis ku ahayd Paul marka loo eego inuu xanuunka COVID la yiraahdo uu ku dhaco qof sidaas oo kale uu naqaska marka horeba ku adkaa inuu ka soo baxo. in 2 wiig uun kadib nasiib daro Paul wuxuu dhintay March 11keedii 2024 ayuu Paul dhintay. waxaynu cashar ka qaadan karnaa ninkan naafada ah in lugaha dhaqaajin karin, in gacmaha dhaqaajin karin, ee kurkiisa mooyaane meel kale aan dhaqaajin karin, inuu wax kastaba qabsaday. This is the grave of Paul Alexander, also known as the man in the iron lung.